Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari kusoo dhawaada mar kale Soomaali Arsenal Fans TV haddii ay tahay markii ugu horeysay aad nagu soo biirtay fadlan subscribe noo saar oo video share garee haddii aad nala socotayna aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Arsenal ayaa waxay ka heshay ciyaaryahanka Zinchenko inkastoo xan horey ay u jirtay balse hadda waxay wararka sheegayaan in Arsenal ay aad uga heshay ciyaaryahanka ayna ku dadaaleyso inay saxiixdo. Ilaa hadda wax heshiis ah oo u dhexmaray ma jiro Zinchenko iyo Arsenal, hase ahaatee Arsenal waxay wada hadal kula jirtaa Manchester City. Zinchenko oo ah ciyaaryahan kusoo baxaya qaabka Arsenal ay u ciyaarto ayaa wuxuu yahay ciyaaryahan dheeli karo dhinaca lafta baaga oo Arsenal hadda ugu baahan tahay iyo dhinaca midfield-ka. Sidoo kale Zinchenko waxaa isna raadinayo sida West Ham iyo kalaabyo kale oo aad u jeclaaday, waliba ayadoo West Ham ay kusoo xirgelinayso ciyaaryahanka inay ciyaarsiin doonto midfield ama khadka dhexe. Hase ahaatee Arsenal wax lacag ah oo ay u bandhigtay Man City ma jirto ilaa hadda, wax wada hadal ah oo ay la sameysay ciyaaryahankana ma jirto. Inkasta oo Arteta uu ahaa gacanyaraha Guardiola xilligii Manchester City uu joogay, ayaa waxaa laga yaabaa inay caawiso Arsenal inuu heshiiskan u fududaado maadaama ciyaaryahanka iyo Arteta ay xiriir fiican ay leeyihiin, si fiican ay isku garanayaan. Wararka Zinchenko ku saabsanna waa intaa, balse waan arki doonaa Arsenal waxay kusoo gabagabayso heshiiskan. Sidoo kale Arsenal ayaa raadinaysa ciyaaryahankan magaciisu yahay Sergio Gomez oo 21 sano jir ah una dhashay Spain haddana u ciyaara Anderlecht. Ciyaaryahankan da'da yar ayaa waxaa la sheegay inuu yahay left back aad u fiican, wuxuuna ka soo baxay markiisii hore akademiga Barcelona, kadib wuxuu u gudbay Borussia Dortmund oo cabaar uu yara joogay, kadib wuxuu usii gudbay Anderlecht. Waxay ahaataba ciyaaryahankan oo hadda aad loo hadalhayo ayaa Arsenal ay ka heshay maanta, ayna doonaysaa haddii ay ku guuleysan weydo inay Zinchenko gacanta kusoo dhigto inay ciyaaryahankan ay keensato ama ay dhankiisa ay u wareegto, maadaama Zinchenko lacagta lagu qiimeynaya ay tahay 22 milyan, Manchester City-na ay ku doonayso lacag 35 milyan ah. Isagana waan arki doonaa halka uu ku dambeeyo haddii ay Arsenal ku qancin weydo Manchester City inay Zinchenko kaga iibsato 22 milyan. Waxay u badan tahay Arsenal inay ciyaaryahankan u wareegi doonto. Sidoo kale Arsenal oo jecel ciyaaryahan walba oo fiican inay gacanta ku dhigto ama suuqa mar walba ay iska raadraadiso ayaa maantana waxa ay u hanqaltaagaysaa difaacan 20 jirka ah ee Croatia u dhashay, RB Leipzig-na u ciyaarayo. Ciyaaryahankan difaaca ayaa waxaa la sheegay inuu aad u fiican yahay, suuqana aad ugu jiro, kalaabyo fara badan ay aad u raadinayaan oo ay ka mid tahay Manchester City. Ma aqaana waxay Arsenal hadda difaac u raadinayso ayadoo Gabriel iyo Saliba iyo Holding iyo weliba Tomiyasu ay joogaan. Hase ahaatee reportska ayaa waxay sheegayaan in Arsenal haddii ay ku guuleysan weyda inay reebto oo ay haysato Gabriel oo Juventus saacadan ay diyaar la tahay inay ka bixiso lacag dhan 50 milyan iyo weliba ciyaaryahan ayagoo raacinayaan, ayaa laga yaabaa Arsenal inay ciyaaryahankan soo iibsato. Lucas Paqueta ayaa asna weli Arsenal hadalhayntiisa aanan suuqa ka bixin, inkastoo welina aan laga haynin war cad oo sheegaya inay weli lacag ka bixiyeen ama ay lacag u bandhigeen si ay usoo iibsadaan ciyaaryahankan. Lyon oo suuqa aad ugu adag seasonkii hadda u dambeeyeyna aanan si fiican ugu jirin liigooda, ciyaaro fiicanna aanan kasoo bandhigin oo ku dhameystay number 8 ayaa waxay raadinayeen lacago fiican oo ay kusoo iibsadaan ciyaaryahano kale. Hase ahaatee Arsenal ayaa weli far ugu laaban Lucas Paqueta. Sidoo kale ciyaaryahanka ayaa la sheegay inuu aad u xiiseynayo ama uu doonayo inuu ka ciyaaro Premier League, Lyonna uu ku push gareynayo inay iibiyaan. Ugu dambeyntiina Yuri Tielemans oo doonaya inuu Arsenal ku wareego ayaa ilaa hadda Arsenal wax lacag ah ay Leicester City u bandhigtay aysan jirin, inkasta oo aan la garanaynin Edu iyo Arteta waxay ka sameynayaan Yuri Tielemans
Tielemans heshiiskiisa. Yuri Tielemans-na gurigiisa oo u bandhigay beec ama inuu iibiyo. Wararka qaar ee xanta ayaa sheegaya inay already Arsenal ay heshiis la gaartay Yuri Tielemans ayna doonayaan inay surprise uga dhigaan Arsenal fans. Hase ahaatee iyaduna isha ayaan ku hayn doonaa. Haddii aad intaa ila soo gaartay aad ayaad u mahadsan tahay. Hana iloobin video inaad asxaabtaada la wadaagto ciyaaraha jecel.